السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تتم به الصالحات. الله بينمهد علينا جل وعلا. وكلن كاني جوجتها وسوق من قابلني مركز كشمس الدين للقراءات العشر المتواترة. وكلن كي وحوي وعي قلنتا طلبة يرديده إيه إن لو ديار قريو دعوده قلبتنا وحي نوع السومن الشيخ وتخانان الشيخ عبد الله وحنا كسي قرنيسان والشيخ حديث كنا مريم بعد العصر كه ولي بريهن مالمها دنبه قرآن كعاد نوج عليه سيء مالين بمبين لقط سيء وصالة ونكسن ما أنتنا وحنا هاللي فدي أنت وران كم غلي شرني دول كهيد فدي وحوي كبلارن سواء هذا وقت قاعد نوك وبين هاي إن شاء الله تعالى كلمة داس قيمة بدل الشيخ نودي أرجريه ونوت لقلي لقينا نفردونا لابت نفردونا ونكعمل فردونا وحين نقدرنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله أنت شيخ كوريجن آيات من ذكر الحكيم أي نكون فردونا وحين آخرين دونا الطالب عبد الرحمن فرحان عمر فليتفضل مشكورا ماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طلع عمبو أيوك ويجا حرينا يو ما شاء الله إنه صاب لا وكيس هاريو تفسير كذا يحريت يو مقامك حقا يرى بدل هذا إن شاء الله وإحنا كسر ويدنا الشيخ إن شاء الله تعالى كلمة نافعة دقان وفردونا الشيخ سود فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى يا مهدله إلهي سبحانه وتعالى ينقدقي مسلمين. إلهي سبحانه وتعالى نمعذ إسلام نمضع ونمعذ أقوى لسان إلهي وبحيه مجر ولا ليال أرضي مدينة نقمدة وإلهي سبحانه وتعالى كعد صدي عم بو حوالي إلهي ويديستي إلهي مسلم كدقو إلهي ونقدرته سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إلهي سبحانه وتعالى والله إذن أبوري مدبا وحويان قال من وحويا ومؤمن يا دور يا مقاسقفكم مؤمن كدغا الله سبحانه وتعالى قالون يا قال كدغي إلهي سبحانه وتعالى قدركيس أي قال ku noqdeen marka إلهي سبحانه وتعالى nimcada islaamnimada siiyay إلهي baan ku mahadnaqaynaa alxamdulillah nimcada islaamnimada wax ka qaalisan ma jirto walaalayaal inaanu islaamnimada ku faano oo aynu ogaanin nimcada ugu qaalisan inay tahay maartay islaamnimadu ayaa qof walba laga rabaa ha yaraado ha weynaado taas marka laga yimaado ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku amaanan yahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ilaahay naga dhigay gaar ahaan idinka arday quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala gacanta ku haysa oo dhiganaya
ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadan hal eheloo keliya ku leeyahay adduunyadan ehel ilaahay cidna qaraabo lama aha cidna ilaahay subxaanahu wa tacaala xigta lama aha ilaahay subxaanahu wa tacaala lam yalid walam yuulad ilaahay waxna ma dhalin isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala cid ma dhalin ilaahay cidda keliya ehel adduunyada uu ku leeyahay waa ahlulqur'aan siduu nebigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam ilaahay ehelkiisu waxa weeye waa ahlu qur'aanka weliba waa ehelkiisa gaarka oo khaasada ah weeyaan dadka qur'aanka barta sidaa daraaddeed walaalayaal inaad ehelkii ilaahay noqoteen oo qur'aankii ilaahay baranaysaan oo aad maanta halkan u fadhidaan oo aad sidaa ugu dadaalaysaan oo quruxdaas idinkaga muuqato ilaahay subxaana wa tacaala maanta ilaahay baa iskale ma aha innaga raganimadeenna ma aha wax weeye innaga markaas wax weyn awooddeenna ma aha ilaahay bayna waafajiyey hadduuna ilaahayna waafajin lahayn halka miyaan fadhihi lahayn mayna fadhineen hadduuna ilaahay noo ogolan lahayn qur-aankiisa inaynu akhrino oo sidoona kale isugu maxaadirayno oo qur-aankiisa ku dhiirigelinno oo macallinkii iyo waxa weeye markaas wax weeye dhammaantiin waa isku duuban qur-aankii kor u qaadno hadduuna ilaahay noo ogolan lahayn maynaan halkan isugu nimaadeen laakiin ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa iyo jacaylka ilaahay uuna jecel yahay ayaan halkan isugu nimi taas inaad arday waliba ogaado ayaa la doonaya walaalayaal haddii inagu caqligeena yar kaashanno ama maskaxdeena yar inagu jirta kaashanno maxay nafteenu jeceshahay nafteena ugu jirtaa ma jeceshay qur-aanka ma jeceshay waa maya nafteena ugu jirtaa waayo naftu ina nafsa la amaaratun bisuu nafti maxay tahay mid fartoon xumaan mar walbana waxa weeye markaasi nafti waxay noogu yeedhaysaa waxaan faa'iido lahayn waxaan micno lahayn haddaynu imika caqligeena kaashanno saacaddan halkan aynu maartay inaynu qur-aan akhrisanno haddaynu caqligeena kaashanno waxayna ka jeclaan lahayd nafteedu inaan balloon ciyaarno oo iskala qaybinno aniguna aan siidhageedin hayo halkan wacdigeedin akhriyayo aan wax weeyaan maartay idhaahdo qodadaasaa wax weeyaan wadatay iyo kuwana loo wadaa taasaan jeclaan lahayn laakiin waxa wax ma ka helaynaa maya ajarka ma ka helaynaa maanta helayno waa maya ajarka ugu weyn iyo fadli aad iyo aad u weyn iyo qiimo aad iyo aad u weyn ayaa waxa weeye markaas waxa weeyaan aad haysataan weliba ta kale lama garan karo ajarka iyo nimcada aad haysataan ma sii wadi doontaan ilaahay baa og subxaana wa tacaala soo ma jiraan arday badan oo halkan idinla joogtay oo jeclayd inay qur-aanka sidoo kale idinla wado oo aan maanta joogin soo ma jiraan ama qaar saaqidayba soo ma jiraan waka idinkuna isma ogidin mar walba waxaad ilaahay weydiistaa ilaahu qur-aanka ifahamsii oo ilaahu ehelka qur-aanka iga dhig oo ilaahu kii qur-aanka ku dadaa kullayba qofku wuu dadaalaya kullayba qofku wuu shaqaynaya ma qof cidla iska fadhiya ya waa maya kuwii imika bannaanka naga maqani way shaqaynayaan ama dembi ha ka shaqeeyaan ama waxaan markaasi ilaahay raali gelin ha ka shaqeeyaan qof meel iska fadhiya ma jiro qof waliba wuu shaqaynaya fa kullun muyassirun lima khuliqa lah qof walbana wixii loo abuuray baa loo fududaynoo loo macaanayn halka idinku maanta qur-aanka ka jeceshihiin dad baa waxay ka jecel yihiin inay giim ciyaaraan oo siday giim ciyaarayeen bay nabeeleen oo maskaxdii dhaqaaqday oo waxa weeye dhiish dhaqaaqay oo maskaxdii imkaan caadi ahayn oo hurdadii ka tagtay suusaa waxa weeye giim u ciyaarayay oo imika muraayadihii odayaasha waaweyn sida lahaabaa loo xidhay oo loo geliyey aakhirna waa la weydiinaya indhaha ayaa siiyey allah jala jalaaluhu alam najcal lahu caynayn ilahay wuxuu leeyahay indhahan annagu maanaan ku siinin marka kaasoo kale miyuu la mid noqonayaa nin indhihiisii siduu kitaabka ilaahay u eegayey ee kitaabka ilaahay u akhriyayey ee kitaabka ilaahay u weyneynayey wakhtigiisii indhihiisu ku dhameeyey iyo nin siduu giimu ciyaarayey filinkartoon u daawanayey waxa weeye markaasi waxa isku noqonayaan maya laa yastawuuna cinda allah ilahay agtiisa ma sinna saa daraaddeed walaalayaal ardayay waa yarartihiin laakiin caqliginu muu yaryahay caqliginu ma yara hadaad jismi ahaan inaga yartihiin ood waxa weyaan yaryartihiin da ahaan laakiin caqligina waxaa jiraba kuwa annagaba naga caqli badan ba laga yaaba inay ku jiraan markaas waxa weyaan mar walba inay caqligiina ka shaqaysasaan oo waxaan laydinla doonayo wanaaggan laydinla doonayo inaad idinku fahmi kartaan ma aha keliya macallinku inuu idin riixo oo waxaan ay noqdaan lagu sheegaya waxaanad iminka fahmi karin inaad gadaal ka fahmi doonto waxaa ka fiican war maada yuriidu almucallim macallinku muxuu kaa doonayaa macallinku ma khayr buu kula doonayaa mise waxa weeye wuxuu kula doonayaa waxaan khayr ahayn waa inaad naftaada weydiisaa ma aha waxa laga yaabaa ardayda qaarkood marka la idhaahdo waxaasaa laguu sheegaya isagoo aan wixii fahminba maqsadka iyo ujeeddada qur-aankan iyo dadaalkan iyo waxaanoo kamarada iyo qalabkan iyo waxaanoo dadaala iyo waxaanoo macallimiin iyo culimaa laydinku yeedhayo ujeeddada laga leeyahay waa maxay waa inuu ardayga isweydiiyaa haddaan imika arday idhahdo maxaa waxaan ujeeddada laga leeyahay waa maxay soo qur-aanka inaan u shaqayna ma aha arday badan iska odhanaysa
haadaas anu igu qancinaya xusleeyde maradu ku dhiso sida ma hada haa undade laakiin maxaa ka fiican su'aasha uu marka lagu weydiiyo inaad su'aasha ka jawaabto waxa ka fiican inaad maskaxda u dirto inaad maskaxda su'aashan u dirto war macallinku waxaan la doonayo waxaan u dadaali waa maxay macallinku maskaxda danaysanaya maydu ku idin danaynaya macallinku ma sida macallimiinta kale idin yahay ma si gaar ah buu idin ilaalinaya cidda dadaalkan iyo juhdiga lagu wada la doonaya inay soo baxda waayo su'aalahaas oo ardaydu isweydiiyaan waxa weeye maanta waxa weeye wax badan ardaydu fahmi lahaydeen hawl badan oo macallinku idinka doonayana iyo dadaal badan oo macallinku idinka doonayana waad fudaydin lahaydeen ardayguna dadaalka ugu weyn waxa weeyaan wuxuu ka imanaya xagga naftiisa macallinku waa maxay waa daliil hadduu nin kuu yimaado oo ku yiraahdo wadadii heblaayay ii sheeg miyaad geynaysaa mise waa tusaysaa deemada gacanta qabataa waad geynaysaa adigu mise waa tusaysaa oo tilmaamaysaa sheegay arday sidaas oo kale macallinku ardayga fiican uu tilmaamaa ardayga fiican macallinku uu tilmaamaa dadna ardaygu ma ku dhaqaaqo sidoo uu hayo weygii iyo tilmaanta sidoo uu raacayo ayuu gaarayaa meeshii uu doonayay oo gaaraya midna waxa weeye mid maskaxda taagantay weeyaano maxay toolay tilmaan waxba ku garan maayo sida loo riixayo ee macallinku isleeyahay ardayda iyo ka harin ardayda iyo ka harin ee uu riixayo ayuu ama meeshii isagoo la jiidayaa la geenayaa meeshii ama meelaha dhaxal laga tagayaba alona yaa kan waa mid aan soconaynba iska sii daayay markuu daalo laakiin qofka fiican aqliga badan leh waxa ku fiican waxa weey waxba la tusaa irshaadaat talooyin sida yeel maxaan ka helayaa ardaygu isweydiya ma qura macallinku sida yeel maskaxda u dir macallinka hada su'aal weydiin kartaa macallin barnaamijka noo dirtay maxaa faa'iido inoogu jira su'aal ma weydiin kartaa wax kasta waxa ka xun inaad macallinkana waxba weydiinin wixii lagu sheegayna aanad qaadanin dadna macallinka sawla ma yaraysato dadna macallinka aad dhibto ama waqti badan oo wax weey ku bixin lahaa meel kale adigu aad ka lumiso ama aad noqoto arday macallinka kaga hawl badan 5 arday iyo wax weey arday hawsha la galiyo inaad noqoto ardayduna marka hore waa isku mid maaha waxa weeyaan ardaydu waa la yiraahdaa waa sidii waxa weeyaan qof gacanta la qabanayo kale marka rag imika maqaasi waxa weeyaan arday aad gacanta qabato taa ardayga firfircoon ee fariidkaayna sida ama qabsoo qabato waxa weeyaan markiiba uu boodaya taa midna waxa weeyaan maanta dad jiidayso kici kar maayo waxa weeyaan qof qaadu doonayo caadi sida islaamaha gaboobay uu istaajiya dabeedna ka u baahan in la istaajiyo wuxuu baahanayaa in la qaado oo hawl buu baahanyahay Soomaaliga ku bixiyo ninka kan asaas ma la soo qabanaya oo waxa weeye markii uu boodaya sidaas oo kale lamideen saadaraad arday waxa weeye waxa la ku dhiirigelinayaa oo waxa weeyna ajar ka helaysaan si aad akhriya dumbu liibantaan qofka quraanka barta ee quraanka ku dadaala waxa weeyaan wuxuu noqonayaa hadhow arday ka duwan ardayda kale haduu xataa maadi barto oo ka maskax badan yahay haduu xataa uu shaqo soo baxdo oo ka maqaas maskax badan yahay haday noqoto chance imanaya chance ka dhan kale uu ka hela waayo qofka quraanka Ilaahay xifdiyay ma buugaa yar waraaqo yar foonto iyo foonu taawaya arday suuratu an'am oo dadku sida u adag tahay oo dhowr ilaa tan buuga ardayga intuu على ظهر الغيب توش كسو قيبها هل مر ميل فديسانيا ما بوق ير oo wax way isku lagu dhigo ayuu ku la ciyaarday waa maya hal mar soo eego ayuu wax weyn soo bilaabo dhameynaya giisaba waxa ku kala sanadada loo dhigay buug yar ba sanadaysanaya afar waraaqada soo koranaya anu waxaan ay eedo buugaas la dhigaa oo buug yar dhamaanba buug yara sidoo sitay ayuu googay buug yara sidoo sitay googay rifayna saqaada ardayga maskaxda badnaana intaas oo jis iyo intaas waxba qaybaya sababana ardayda iskuulada waxa loo dhigo hal buug busnanaya meel la buug loo dhigaa maado walba hal buug busnanaya halka buug waxa shaqo kooban buugaas sanadka bilowgiisa ku arkaysaa sanadkii dhamaanayna kiibasta wali buugi adiguna waxa laga yaabaa muddada sanadka ah marka dadaasho ee macallinka talooyinkiisa aad qaadato arday soo jeedana aad noqoto imisaad gaari kartaa muddada yar sanadka uu kaas buugaasito imisaad adigu wax dhameyn kartaa imisa waxa weey jisba dhameyn kartaa hada dadaasho wax badan dhameyn kartaa wadarkiisina ardayda qaar ardayga kale Ilaahay barakeeyo ardayda kale mid ka hayd wadarkiisina buugti qoreen sanad ma ku qoray inta ku qortay
saddex bilood buu ku qoray miyuu isleegin buugkan qoray buugka ardayda sheeta هذا ما يسلقي إلا أردبه إذن الله على يسكول الله ركتة ولا حستان هيك بوق غير حستان هيك الصراحة كبسته يقول لي كاسب الله يرجع مربع دبا اللي يقول يا مرنا حشدك وحيت على يرجع معلنا وفصح معلنا وعيار معلنا معنا كم مقن إذا قالوا خم معنا كذين ذالية واحد معلنا إذا كم مقن علينا حتى معلمين فصح بقى الذين ذالية صار حد قال عيدين هذا أرض جالسوا كله كم سواق استاجيو iskuulka markaan dhamaynay anigu iskuulka dhigay jirnay quraanka ma aan dhigay jirin iskuulka markaan dhamaynay waxaan aragnay iskuulkii waxba taraynin markii iskuulkii dhamaaday meel alaay meel qabanno garweyn waxaan noqotay markaa quraanka dib bilowno quraanka dhigano anigu rig waaweyn oo dhowrayaan laakiin waxba garanaynin waa quraanka loo bilaabay saanadi markaan iskuulkii ka baxnay bal hadda quraanka la dhigaya marka arday waxa weeyaan meel wanaagsan iyo shaqo fiican ayaa haysan waxa la doonayaa dadaalkiina inay kordhisaan waxa weeyaan aad maartay waxa weeyaan ajarka gaadhaan maanta dadkii waaweynaa iyo dadkii jaamacada dhameeyay masaajidka markaan joogno mar arday baa ku imanaya waxa ku leeyahay sheekh waxaan doonayaa quraanka inaan dhigto oo inta dhigatay malcaamadii waxaan iskaga tagay markaan 9 marayay ayaan iskaga tagay 9 mar waan kala ilaaway markaan waxba ka garan maayo waa nin weyn quraanka saa lagu dhigi karaya ma hawl yartay ما هو اليرا وقتي ناس كله كسب بودي قفكر وقتي ناس كله أيو كسب بودي طبعاً ما أنت يسقون نوين قارب كل من يقولون جامعة دمية صار جامعة دمية شو كسر اسمها قرآن كنا ما قرأنا يوم مركوين بدن شوقي وحوق هذه إن أنا نرشنا القرآن لأنتي عن سعونين النبي قلنا كذا عليه الصلاة والسلام النبي صلى عليه الصلاة والسلام وحويا الذي ليس في شوفي شيء من القرآن كالبيت الخرب النبي عليه الصلاة والسلام قف كان قلبي سيء لا ابتسم أنا القرآن كتشرين واسيد قولي خرابة أيوة المديعي وقف كان القرآن بقرنا ينبع وحلقوا مثلي قولي خرابة كواكي وقولي عن طريق شدة طاقة الهين شيء قد لهين دحنت كاعل المايو روبك كاعل المايو بهلك كاعل المايو توك كاعل المايو كل اسماء فاعل ليه سيداس كان قف كان قرآن كاقوننا waxa qiimo leeyahay ma jirto nabigu kaleey salaatu wasalaam dagaalkii Uhud markii saxaabada la laayay asxaabta markuu aasayay wuxuu kala horeysiyay xabaasha uu kala horeysiyay sida quraanka uu kala yaqaanay xabaasha waxa loo kala horeysiinay laba saxaabi la isku aasayay saddex saxaabi afar saxaabi la isku aasayay waxa loo kala horeysiinay sida wax weeyaan quraanka ay uu kala yaqaaneen sidaa daradeed fadliga iyo wanaagaas waxa laga helayaa ardayda quraanka qofkuna intuu yar yahay dadka kale waxa weeyaan waalidkiina idin dhalayna waad anfacaysaa nin waalidkii anfacay waxa la arkay qof quraan bartay النبي عليه الصلاة والسلام maalinta qiyaame ee aan waxa weeyaan dadku ay qaanwi yihiin oo aan cidna rixidnayn oo waxa weeyaan qof waliba uu mahasuul diidayo oo qof waliba waxa weeyaan mahasuul calayo ayaa waxa la yiraahdaa waalidka ayaa waxa loo gelinayaa taaj weyn baa loo gelinayaa tan waalidku wuxuu oranayaa taajkan weyn iyo maarta boqortooyadan fiican maxaan ku helay tabadeedna waxa la oranayaa wiilkaaga aad quraanka bartay ayaa wax weyn ajarad kuma taystay hatta qofka ardayga yar maanta aabihi ee quraanka bartay aabihi hooyadii aakhiro uu shafaaca qaadaya ma waalidka shafaaca qaadaya mise ardayga shafaaca qaadaya sidaa daraaddeed arday waxa loo baahan yahay in aad noqotaan arday quraanka dadaasha quraankana dadaal badan ku bixisa mid kalena way sheegay arday waxa la idinka doonayaa inaad quraanka Ilaahay dartii aad u barataan haddaad maaragtay qastigiinu uu noqdo inaad macalinka iska eegtaan amba aad noqotaan dad waxa weeyaan aan quraanka Ilaahay dartii u baranaynin cabsi iyo baqdina waalid ka baqayaan iyo waxyaabaha soo dhan ajar meelisan ajarka waxa lagu helaa amal kasto la qabanayo Ilaahay dartii lagu helaa aakhiro dadka imanaya kuwa ugu horeeyay la cadaabayo aakhiro waxa kamid ah ee Ilaahay uu cadaabka gelinayo abi hurairah xadiiska warinaya waxa kamid ah nin quraanka bartay qof intuu quraanka bartay dadkana sii baray ayaa qiyaamaha imanaya Ilaahay baa ku oranayo quraankii aad baratay ka waran
markaasba wuxuu leeyahay ilaahay oo qur-aankii waan bartay dadkiina waan sii baray ayuu leeyahay. waxaa la odhanayaa kadabta, been baad sheegtay. qur-aanka waxaad u baranaysay in la yidhaahdo waxa weeyaan xariif baa tahay. waxaad qur-aanka u baranaysay in la yidhaahdo hebel waa qaari, xafladdii walba wankuu galaa, cidi kama qaado, isagaa ardayda u sarreeya, ammaantaasaa doonaysa. intiina adduunyadii ayaa lagugu soo yidhi, maanta halkan oo aakhira ah waxba kuuma yaalin, dabeedna naarta lagu tuuraya. hadda eeg, qur-aan buu bartay, qur-aan buu qofkaa la cadaabaya maaha, gaalkii maaha. ardayda qaar waxa laga yaabaa isleeyihin gaaladu baa la cadaabaa. muslimiin badan oo khalad samaysay ayaa la cadaabaya. waxaa kow ka ah qof qur-aanka intuu bartay aan ilaahay dartii u baran. awalan ardayay niyadiina waana wanaajisaan. arday waliba waa inuu maanka geliyaa oo maskaxda uu geliyaa oo qalbiga geliyaa, qur-aankani adiga ayuu ku anfacayaa. qur-aankani ayuu anfacayaa awalan adiga naftaada. marka aan macallin la gaadhin oo aan waalid la gaadhin oo bulshada inteedii kaleba aan la gaadhin, naftaada ayaad waxa weeye markaasi qur-aankani uu anfacaya. weeltaa ogaata. ta labaad, haddaad qur-aanka barato waalidka waad anfacaysaa. ta saddexaad, haddaad qur-aanka barato dadkaad sii baraysaa. dadkan ayaa ugu khayr badan, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah. dadka waxaa ugu khayr badan cuثmaan bin cafaan baa xadiiskaa warinaya, nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam. waxaa idinku khayr badan qof qur-aanka intuu bartay dadkana sii baraa. ka waran haddaanan baranba, ka waran marka hore waan iska igaadsado intan mobilada ka daawadayo meelaha ka dhegaystay tifiyada, marka dambe aan idhahdo dadka waan baraya, miyaan bari karaya? may. si wanaagsan baad qur-aanka u baranaysaan, si wanaagsan baad qur-aankii u wadaan. maanta dadaalka aad haysataan iyo macalinka aad haysataan, arday maanta haysato magaalada Burco joogta way yar tahay. sidaa daraaddeed waqtiguna uu soconaya, maalinba waa soo weynaanaysaan. hamoodina sidaan u lahaanayo hadda cadceedda sida hayso samaha. waxaanu gelaynaa maalin habeen khamiisa aynu caawa gelaynaa samaha. saas waqtigu soconaya, adiguna waad weynaanaysaa. dee adoo fariid oo qur-aankii bartay inaad weynaato iyo adigoo nacas inaad weynaato ka wacan. adoo fariid oo qur-aanka ilaahay bartay oo qur-aanka intaad yar tahay maskaxdaada mar kastoo aad maartay aad sii weynaato, waxa weeya maskaxda qofku intuu yar yahay ayay fresh tahay. maalin walba markaad raashinka cunto, habeenkana si wacan u seexato, subaxina waad soo yar kor baad soo yarkacaysa. mar kastoo aad soo yar weynaatana xifdigaagii iyo dadaalkaagii hoos buu dhacaya. taa ogaada arday. qofku ma weynaantu wax ku fahmaa mise yaraantu wax ku xifdiyaa? yaraanta aad ku xifdiyaa. imika waxaad qaybaysaan in macalinku idin qaybsanayaan, waddaan saado qayb way ugu adkaanaysaa. haddaan islaado qaybna kadeed iyo hawl bay la maraysaa. laakiin waxa laga yaabaa maskaxdiina fureesha markiiba waa diyaarinaysaa. sidaa daraaddeed ardayga ogaada, gabalkan dhacaya iyo waagan baryaya iyo maalintan la imanayo iyo maalinta kale la imanayo, waa khamiis, haddana waa jimce, haddana waa sabti, haddana waa usbuucii labaad, haddana waa bishii kale. imika waxaan maraynaa bishii jamaadul awal baan maraynaa. malaa maanta waa tobanba. maxaa hadhay jamaadul aakhir, rajab, shacbaan, maxaa ku xiga? ramadaan. ramadaantii dhowna wadinka ogaa. saas waqtigu u ordaya. sanad markuu dhammaadaba sanad kala dhimanaya, adna waad sii kordhaysaa uun. xaggana dadaalkaagii haddaanu yaraanin, hadduu dadaalkaaguna yaraado, cuntadaad cunaysa iyo koriinkaaga iyo weynidaaduna ay kala bataan, dee hadhow waxaad noqonaysaa qofkaas muxuu noqonaya hadhow markaad xaggana ka weynaato, dadaalkaaguna ma badna, qur-aankaagina waa wax yar, adigana wax badan baa tahay, adigana waad badatay. qur-aankaagina wuu yar yahay, wax yar baad dhigataa, maad socod badan samaynin. saa daraaddeed macallinku sida imkaan ka dhegeysanayay, waxa weeyaan taasoo jisna dhigataan baa laydin khideeyey. soo ma jira takhdiid aad ku socotaan oo macallinku idin dejiyey. takhdiidkaas inta ardayda waafaqaysaa ee inta badan macallinku siduu doonaya takhdiidka u waajahaysaa, waa inta garanaysa waqtiga soo soconayo, waqtigu soconayo. waa inta garanaysa in dadaalkan iyo takhdiidkan uu anfacayo. ma adigu ku anfacaya mise macallinku anfacaya? adigu ku anfacaya. waxaan garanayaa markan anigu malcaamad ma dhigay, markaan malcaamad dhigi jiray, ardayda waa isku dari jiray. marka marba arday baan oran jiray intaasi haysa jaan qaado. qaar baa wax kooda bilaabi jireen axqaaf, mid yar oo fariidina intii loogu talagalay 10 jis marka la gaadho, waxaa la dhayaa waa raggii imsaa wada socda. 20 bay ku bilaabeen 5 jis. ragga qaar baa 6 soo socda, jiski 6 maraya. ninna 10kii u taagan yahay, qabida 7 ba maraya.
ilaa 5 ardayna waxay taagan yihiin jiska 10aad bay dhameeyaan marka ardayga jiska 9aad maraya wuu soo karaya waxa la oranayaa maalmaha iska naso baa lagu oranayaa oo quraanka hore iska akhriso laakiin ninka jiska lixaad soo karaya ya uu gaabiye marka ka waxa lagu darayaa qolada intay jiska saddexaad ka timi shanaad imika joogta ee lixaad soo socota kuwaas jidka soo maraya isku jidkaasi socda ayay ku soo maraya ilaa ma dheeraanaya cadhabeedu wataay meel gaariyay ma soconaye kuwaas soo gaariyay marka saadaraadii walaalayaal arday waxa la doonayaa inaad qof kasta u ogaato hadduu macallinku kuugu celiyo hadduu macallinku maalin labaad ku siiyo hadduu macallinku usbuuc kale ku siiyo macallinku waqtiga masaga leh ma usbuuc soo celin karaa ya oo reer waqtigu socday hadduu macallinku ku siiyey fursad labaad macnaheedu waxa weeyaan fursaddan hadduu ka go'an tahay macallinku waqtigii socday ma soo celin karo maalin walba waa cid cusub iyo waqti cusub waana dawaataa waqti kasta ku dhaafa aduu ka go'an yahay waxa laga yaabaa macallinku marka waqtigaaga dayacdo inuu murugoodo oo cadhoodo wuxuu ka cadhoonayaa maxay waqtigaas ka dayacday waqtiga waxba la qabsan lahaa waxa weeyaan marka imka geeridu ay timaado ee qofka malakumeedku soo dul istaago malakumeed ka taqaanin waa ka nafta qaada malaga nafta qaada markuu ku dul istaago hadaad tiraahdo saacad ii qabo saacaddan adoo xaraamada ku dhamayseed waxba kula ahayn taa tiraahdo saacad ii qabo kaa yeeli maayo taa tiraahdo 10 daqiiqo iyo 10 daqiiqo isku ma yeeliyo waayo laguma talagelin been isugaba taas maxay caddaynaysaa xilliga uu imanayo naftu kala boodaya ilbiriqsina kugu dari maayo ilbiriqsina ka soo dhici maayo ka qaadiya markiiba taas waxay caddaynaysaa waqti aanu mulkumeedku ku deynaynin maxaad adigu isaga dayacaysaa inaad weynaan doonto mar badaysaa muqafa ogni weynaan doono imsa yaraa ku dhintay iyagoo yaryaaradii kale iska dhintay geerida ilaawna ma xasleedin wadku dadka oo imbeeriyada ma kaliya may wadku loo sameeyay mid xalay dhashay ayuu habeenka laad booy manayaaba hada xalay kale jooga diidaba habeenka laad booy manaya leeyahay nafta kee adigoo 10 sano adduunyada cunayay ayaa sida wad yartay ma yarid 10 sano ayaad wixii afka maraba saasunahay qaar baa 12 sano jooga ardayda qaar baa 13 gaari samaha sidaad raadid saas waqtigu wardaya marka waxa weeyaan waxa la doonayaa ardayay inaad waqtiga ka faa'iideysataan waqtina la siin maayo waqtiga la isma maayo waqtiga la isma siiyo waqtigu wax weeye ma soo noqdo ardayda qaar baa moodiyay malaa sabtidii walba sabtidii u tahay oo sabtidii hore soo noqotay waa ma sabtidii ma tagtaba de ma walba soo noqotay sabtidii warway tagtay waa sabtidii kala tani sabtidii hore maaha xataa cadceed hore maaha cadceed noo soo baxaysa sida culimadu noo sheegeen waxa weeyaan waa berri wax soo baxaysa cadceed cusub oo intii maanta dhacday aan ahayn maqasi waliba hadlaysa maqasa waxa la yiraahdaa wax hadalkeeda waxaan maqlaynin oo kaliya jinka iyo insigo inaga makhluuqaadka kala dhan way maqlayaan ana yawmin jadiid anigu maalin cusub baan ahay maxaad in aadam u dhiibanaysaa quraan baad dhiibanaysaa ma waxa weeyaan salaad baad dhiibanaysaa maxaad dhiibanaysaa ardayda markii waagu bariyo waagiisa bariyo quraan buu ku bilaabaya adkaar quraan masaajidka soo kala maamadi oo yimaado quraankii oo akhristo tidna xulay cadceed aniga quraanka faraha badan la iga sii qaad mid kalena waxay ka qaadaysaa cadceedii waxaan waxa weeyaan maqasi faa'iido lahayn cadceed kastaana qiyaamaha imanaysa iyadoo sideedu socoto gaara cadceed waliba iyadoo gaarkeedii maalinta wixii ay diiwaan gelisay Soomaalidu imka kan buugaagba taa laxma diiwaan geliyo ya sidaas oo kale iyadoo waxay diiwaan gelisay aad maalinta qabatay waxa leedahay anigu waxaan ahay cadceedii maalintii u dhameysay arbacada Soomaaliya ma arbaca maaha ayaan ahay waxaan soo bandhigaysaa qof kastaba hebel maanta intaas oo quraan u akhristay salaadii maanta uu ilaaliyay intaas waxa weeye maqasi ayuu galay waqtiga uu ka faa'iideystay intaas oo dayac uu sameeyay waqtigiisu uu fiicnaa oo reer boqolkiiba 80 buu keenay ma baasan ku baaso fiican yahay boqolkiiba 20 yar dayacay laakiin
boqolkiiba 80 uu fiican yahay mid kale kaasi waxa weeyaan salaadina way dhaaftay quraankina sidoo macnaheedu la meereysanayo laha way in yar ayaa cadad dhacday oo reedi kaani ka waxba lama hayo cadadii siiro bay ku dhaaftay siiro soo qortay marka waxa weeyaan labada nim ismayn waqtiina ka faa'iideysta arday waqtigiina ka faa'iideysta aqligiina iyo maskaxdiina iyo garaadkiina uu koraya waxaan ku hadlaynana macalinku waxaan kula hadlayaa waa af Soomaaliga waad fahmaysaan haddaydan isyeeleynin waad fahmaysaan waxaan ku hadlayo waxa la idinka doonayso garanaysaan war macalinku wuxuu idinka doonayay ma garanaysaan ya waxa way waad garanaysaan marka waxa la yiraahdaa ardayga maskaxda badan leh waxa weeyaan meel saru waxa la yiraahdaa uu wax ka arkaa meel sarna uu higsada waxa la yiraahdaa yar waxa la yiraahdaa cadaan buu ahaa ba wuxuu dhashay Mareykan ee meelahaas aabihii baa uga sheekayay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam laga waran Nabi Maxamed laga sheekayay waxa Nabi Maxamed saasuha ajiib aabihii baa uga sheekayay bayna khayr maskaxdiisa balay markii looga sheekayay wuxuu yiri su'aashu soo celiyay ma taqaanin arday aabihii su'aal buu weydiiyay wuxuu dhaabo how can I messenger sidee baan ku noqon karaa nabi anigu maadaama nabi maxamed sidaa u qiimo badnaa oo waxa soo fadliyay waxa soo wanaaga u lahaa anigu sidee baan nabi ku noqon karaa buu ku yiri يعني وين غير waxa looga sheekay wax fiican baa looga sheekay nabi axmed waxa lagu amaanay waxa way calayhi salaatu wasalaam fadligiisa iyo qiimihiisa baa looga sheekay taariikhdiisa baa looga sheekay waxa loo sheegay adduunyada adoon soo mara oo ka qiimo badnaa inuu jirin dibna ka soo mari doonin horena u soo mari doonin markii weynan ka yar markii hadalkii weeleeyay su'aashu soo celiyay maxay noqotay anu sidaba nabi abu noqon kara waxaan doonayaa yani wuxuu doonayaa inuu martabada gaaro ma wax isleeyahay wuxuu moodaya man nabinimada markaa wax deel noqdo nabinimada qof meel qadhiga kara yaa cid nabi ka dhiga allah ilaahay baa nabi ka dhiga cidoono allah yastafi min almalaa'ikati rusulan wa min an-nas ilaahay baa dadka doorta rususha yani taas maxay muujinaysaa inaan ka yar mawduuci laga hadlayay ma fahmin mise ma fahmin wuu fahmay aduguna maanta radii lagu wacdiye ka waran ودنا وح على الحلقات ليبا بيبقى قيامة لو شيء كبالي قيام وعين كاس ما أنت ما كي معناك بعدي أقول ما على ها قيام فصح مع هذا فصح ما أنت قيامة وحي وعد الآخرية بيسقع وح أم وقتك بدي وحاسب عسلية ترى ما أنت وحاسب ولا مريض هذا ما صح يقول هذا يارتي هذا واحد اللي بابا قيامة اللي هذا بقى صبرني اللي ما خاسوك ليه ما عاد فصح بقى مركع حردور يا أرضي إن ninkaasna waa kala inaan ka yaran halkaas ka fikiraya oo nabinimo sidoo gaar lahaa ayuu markii la wacdiyay ka faa'iideystay oo hor u soconaya kana waxa weeyaan waa la waarinayaa oo aakhirada lagu waarinayaa aakhirada qudheedu fasax doonayada kula aniga maanta ma la fasaxaya masku daradaasi masnadee waa in maskaxdu shaqeeyay socoto hoos socoto saadar arday waxa la doonayaa noqotaan arday maskaxdoodu ay kor u socoto oo wax fahmi karaya oo waxaan laga hadlayo gaari karaya dunyada walaalayaal qodobka kale walaalayaal يعني إذا رأينا يا أرضي وحوي مدون إنسان قرآن كونه يدون في الضعض هذا أرضي مدون إنسان قرآن كإن الله سبحانه وتعالى مركز صدى الله وتشروا أكتنا هي مركب قلبي إلهي الرعيو وأقول بتونين صلاة يوسد العليا صلاة يوسد العليا قرآن كادو يسقى آخري صلاة هنا إلى شو بالكور ردان هذا قرآن كانوا عن آخر السنة يوم عندنا يوم ولذلك صلاة دارو بتكونيو صلاة هي بتكونيو عن بابا أي صلاة هذا نقطة صلاة مركب معلم كذا شوقنا اللي تكذو كل كم العامد وفسح على قالنا صلاة ولا فسح يوم كور صلاة مش غير نسا هاي كل هاي القرآن كلها كورمي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كل اللي هو جنوا آخر وادين نرد بقليا وقال صلاته كذا لكن يقول تكون يا أبي هدنا وحوين عادنا نارتي قلنا
maxay ku hoogeen jahannamo waadigeeda geeyey aladiina hum can salaatihim saahuun salaadoodii bay dib u dhigayaan markay doonaana taaratan yusalli wa taaratan yatruk mar wuu tukanayaa marna wuu iska diinaya salaadii macallinkii hadduu arko wuu tukanaya si fiican buu tukanaya hadduu macallinkii arkayna aan macallinkii arkayna salaadii wuu dadejinayaayo waxa weeyaan wuu ku dhaqsanaya salaadii salaadan ayaa loo tukanaya macallinka allah ilaahay uu ku arkaa waxaa la yidhaha addoonku 2 jeer buu ilaahay hor istaagaa ardayda soo jeeso 2 jeer buu ardaygu 2 jeer buu addoonku ilaahay hor istaagaa hadhow dil weydiiyaa garwaay 2 jeer waa goorma waa qofku markuu salaada tukanaya iyo marka qiyaamaha ilaahay hor tago wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'an al-hawa qofka ka cabsaday suurtaaga rabbigii nabiguna wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofku salaada markuu galo ilaahay baa soo qaabila dabadeedna xaggii ilaahay subxaana wa tacaala ayuu qofkina u jeesanaya ilaahayna uu soo qaabilaya markuu yidhaahdo qofku alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa u jawaabaya xamadani cabdii addoonkaygu way mahadiye الرحمن الرحيم فقط هذا إلهي يحلي مجدني عبدي هذونك يقوي أماني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فقط هذا أثنى علي عبدي هذونك يقوي أماني بإلهي لي ويقيمي وحوق هذا إنه لي يا ربي ما هذا نسكله إياك نعبد وإياك نستعين فقط هذا وحلي هذا بيني وبين عبدي تاسواتي أنا يا دون كيجا نور حيسي هذا صلاة ما كجرتها فاتحة بعد أخريسها الحمد لله رب العالمين بعد لضي إلهي بكون شوابية الرحمن الرحيم باتري إلهي بكون شوابية فهذا الناس كان وحولنا حاجة مرنا كان مرس كحقضاء مرس كوفي في تدنا فكرنا أرجع صلاة دي ما سكوا يردي ما يا إلهينا كما تحشونين إلهي محينا كم ذي إن نقدرنا تصير يا شاو صادر حيث كل يارته والصلاة دي احترام ويدو وما قدر الله حق قدره إلهي ما قدرين ما دوين إلهي سبحانه وتعالى حداد إلهي وينيسو صلاة إلى عليسو هذه إلهي باكو احترام يكوينينيا فاذكروني أذكركم حسب إلهي لي أو وينيا أنا قلنا إذن حسيا إلهي سبكوا حسيا إنه إلهي سلا حسا قرنا يو إلهي وحلنا الحمد لله رب العالمين وإلهي ونعمنا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله بلنا هذه إلهي سبكوا حسيا إلهي وكشر فيا مسكح هذا عقلي قلبي إلهي يكون بركينيا قرآنك إلهي يكون فريا إلهي سبحانه وتعالى عافماتك إلهي يكون سيادنيا نمعوين فربضا وما أنت وبها أنت إلهي كسنيا سبحانه وتعالى سادر الأرضي وين صلاة إلى اللسان صلاة وين أرضي إلى اللسان وصلاة ay noqoto waxaad mar walba ku dadaashaan ama malcaamada jooga ama malcaamada ka maqnaada labadaba salaaduna fasax ma laha ardayay ma maqlaysan ardayay salaadu fasax ma laha imika baad maqlaysan imika wada la sheegay salaadu fasax ma leh salaadu waa la tukanaya salaada waxa fasax ay gelaysaa salaadu ma taqaan goorma gelaysaa salaadu fasax ay garanaya واعبد ربك حتى يأتيك اليقين مركي جيردو كوت ما دين نفتح بحضو ما قاسم سعادة فسح كريسة النبي عليه الصلاة والسلام مركو حنوسني يوسيني مني وحال إلى ذا سقو كوما قلي oo waxa way miir doorsoon oo ayuu markuu koomada ka soo baxo ayuu xulaha salaadii meel la tukaday sida markuu koomada uga soo baxo waxa uu horeeyay uu lahaa salaadii meel la tukaday asxaabta weydiinay maqasha rasuulka ilaahay maya hada lagu sugaya weysay keen nabiga kaleey salaatu wasalaam biya loo keenay uu weysa qaatay waxa way dahaar dhamaystay markuu damcay inuu kaco oo salaadii uu kaco ayuu dhacay tala koomu galay haddana waxa weeye markii koomadii ku jiray saxaabadii way sugeen markuu koomadii ka soo baxay ma oranin dhakhtar geeya ama ila carara ma oranin wuxuu yiri salaadii miyaa la tukaday taasi maxamed jus arday sida salaadu nabi maxamed ugu weyneed calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale inaguna ummadina maxamed bana samaha in salaadu ugu weynaato oo salaada aanu qiimeeyno oo salaada aanu qadarino oo markaad maqashay hayya ala salaah
ayaa la doonayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ardayay kuwa quraanka ku dadaala ee quraanka weyneeya ee quraanka qadariya allah inaga dhigo aamin ilaahay haydan barakeeyo sida dharkii noo quruxda badan yihiin aad quraankii iyo maartay wacdi ku dhageysanaysaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka iyo salaada iyo digriga iyo waxa weeyaan dadaalkaba allah idin siyaadiyo nabiga kaleey salaatu wasalaam man la yashkuru an-nas